بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا إذن سلامي قيارة دمانتي سادو دنتين meel kasta aad kala joogtaan dunida daafeed halkaad igala socotaan waa channelka Ladan Cabdo. Fadlan dhageysto haddii aad igu cusub tahay isku day channelkan inaad subscribe gareyso gambalkan aad ka dhigato si uu kuu soo gaaro muuqaal kasta oo soo share gareeyo biidnillah. Haddii aad ila joogtay waad ku maasantahay la joogistaada qiimeyntaada quruxda badan intaas oo dhan waa iga codsigayga waxaan rajeynayaa inaad tixgelin doonto. Soo dhawow mar kale waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabto sidaan anigaba u caafimaad qabo insha Allah. waxaan rabaa maanta inaan la wadaago qiso qiimaheeda wada run ahaantii qisadan aniga wax badan ayaa iga baxay adigana tarow maxaa kaaga bixi doono qisadeeni sida tan ay ku bilaabanaysaa ku soo dhawow walaalkay ama walaashay haddii uu ku soo gaarana hayga iloowin inta codsi aan ku soo sheegay insha Allah. qisadeeni ayaan bilaabanaynaa. qisadan waxay ka dhacday dalkaas Sacuudiya. maanta Sacuudi ayaan aadnay dalkaas Sacuudi ay ka dhacday qisadan waxayna ku dhacday nin Suudaan u dhashay dalka Suudaan u dhashay. wiilkan wuxuu ku barbaaray dalkiisa Suudaan ilaa uu ka gaaro muddo ilaa sanado uu ka gaaro 15 ilaa 16 sano. markii uu gaaray waa uu guursaday. markii uu guursaday gabar isla da'diisa camal ayuu guursaday in cabaar ay isqabeen ay wada joogeen gabadhii wax awlaada Ilaahay muusan siinin asna dadaal dheeraad ah dhakhtar badan ay tageen. waxa la ogaaday muddo dheer kadib dhakhtarkii markii la aaday in uu yahay cilada wiilka ama ninka in uu yahay. run ahaantii gabadhii iyo wiilkii waxay ku go'aan ku qaateen in ay sidaan ay isku furaan oo nin walba calaf gooni ah uu raadsado. gabadhii waxay tiraahday markii ay kala tageen oo uu furay ninkan wuxuu Cabdullaahi ayaa la dhahay ninkan wuxuu ku haami weynaa ama uu rajeyn jiray markasto inuu aado Sacuudi Arabiya. wuxuu dhihi jiray muddo dheer kadib 3 bilood markii ay ka soo wareegatay Ilaahay ayuu bari jiray. wuxuu dhihi jiray Ilaahayow waxaan rabaa inaan aado Sacuudiya qaasatan xajka beedkaaga inaan tago oon cibaadeysto ayaan rabaa Ilaahayow ii fududeey. Ilaahay amarkii 3 bilood kadib ninkan wuxuu helay fiisihii wixii uu ku aadi lahaa Sacuudi Arabiya. wuxuu tagay beedka Ilaahay uu iska cibaadeysanayay. wuxuu ku aaday xilli cimro ama Ramadaan. markii uu cibaadeystay ninkan asagoo maalin maalmaha kamid ah asoo beedka Ilaahay fadhiyo oo iska cibaadeysanayay ayaa waxaa soo agmaray nin daadiisa ay tahay daada kontomiyada oo kaleeto ilaa iyo adiga 40 ilaa 50 nin u dhaxaysa camal ayaa meesha soo maray. wuxuu ku dhahay hebel walaalkay waan ku salaamay sidee tahay waxa tahay miya dadkii ka imaaday Suudaan ha ayaan ku dhahay ayuu dhahay Cabdullah. markaas ayuu wuxuu ku dhahay ninkii Sacuudiyaanka ahaa dadkaas Suudaan waa dad ixtiraam badan waa dad jecel martida waa dad soo dhaweyn badan ma kula soo fadhiisan karaa waqti dheer kadib waxay aadeen meel maqaayad ee way wada sheekaysteen. sheeko dheer kadib wuxuu ku dhahay maxaad u imaatay Sacuudi hadafkaaga ugu weynaa oo u imaatay wuxuu ahaa. wiilkii ama ninkii ka imaaday Suudaanka ahaa wuxuu aniga waxaan u imaaday marka koowaad hadafkayga inaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u cibaadeysto beedkiisana aan imaado. markii taas laga soo tago waxaan rajeyn lahaa inaan iska shaqeysto. markaas ayuu wuxuu ku dhahay haddii aan shaqo ku helo haddii aan shaqo ku keeno ma tahay in shaqeysanayo waagii aad joogtay Suudaanna maxaad qaban jirtay. wuxuu dhahay aniga waagan Suudaan joogay waxaan ahaa nin shaqo badan nin beeraley ah nin xoolo dhaqato ah ayaan ahaa nin dhiifoon ama firfircoon ayaan ahaa. wuxuu ku dhahay ninkii Sacuudiyaanka ahaa okay hadday saas tahay waxaad ii dhiibtaa waxyaabii aan wax kugu xareyn lahaa si wadanka sharci waxaas aan kugu raadiyo kadib aan kusoo iska baxdo aan kusoo waco telefoonada kala qaadan aan kusoo waco aad Sacuudiga ugu soo laabataa. ninkii wuxuu dhahay haye diyaar waaye. wuxuu u xareeyay iqaame wixii wadanka lagu joogi lahaa sharci ayuu u xareeyay. wiilkan iska soo baxay waa nin iska daayiro iska dhalinyaro ah wuxuu ku soo laabtay Sacuudi Arabiya wuxuu ku soo laabtay Suudaan
in cabaare markuu joogay adi muddo 2 week oo kaleeta ama 3 week markii uu joogay ayaa waxaa soo wacay ninkii Sacuudiyaanka ahaa wuxuu ku dhahay Cabdallah waxaan ku helay wax aad ku imaan karto dalka Sacuudiga aadna ka shaqeysan karto imow waxaana ku hayaa shaqo sidaas la socod markii uu imaaday wuu soo dhaweeyay ninkii Sacuudi markuu imaaday oo la soo dhaweeyay wuxuu ku dhahay walaalkay soo dhawow waxaan ku hayaa shaqo waxaana u shaqeynaysaa aabahay oo nin da ah يعني magaalada hadda Sacuudina xoogoo duleelkeeda joogo baadiyeeda joogo si aad ariga beeraha aad ugu fasho meeshasna masruuf fiican ama bil fiican laga siiyo nolol maalmeedkaaga email aad seexan lahaydna korkeena ayay tahay wuxuu ku dhahay diyaar way waan rabaa waana ogolahay shaqadaas markii kadib yacni waa la waday aabihii ayaa loo geeyay aabihii markii loo geeyay wuxuu arintii ayaa looga sheekay wuxuu dhahay waa diyaar way waan ogolahay hay shaqeeyo waxna islama weynina camal isla markiiba wuxuu يعني guda galay shaqadii ayuu guda galay ninka waa nin aad u firfircoon waa nin cibaadadkiisa masaajidka shaqadiisa masaajidkiisa xoolaha ariga iyo beerta bas ku mashquulsan xataa marmarka qaar waxa la dhahay yani markuu aado magaalada oo kale dadku waxay leeyihiin kuwa uu arko dhalinyarta Suudaanka ka imaatay wadanka Suudaanka imaatay markay arkaan waxay dhahayn uriya nin Suudaan ma tahay ha ayaan dhaha marka yani uu dhaho كوما أركين مجالة يعني إنتاج جوكتا عمل وأنا ما تتكسو دحل حقلين شقديسة يوم مساجد كيسة كل اللابتو وحيساس أهاتبا ويلكي وحودا هاي يعني مركي بلاكس أما بشكل يسكو ديبتي وضيجي وانين بقيل يعني وحور بي نكاد مادام شرعي هيسنين يعني وواحد مقالة هدوها يعني بريو والحرا إقامة يعني وحويست وحيرا ومركز لوجه وشرعي وينا مقالة موسى هيسن سعودين وحدا قانوا قفا شرعي هيسن إلا صوت رحينا بس نكا وحودا هاي يعني odaygan wuxuu isleeyahay bal ha ku shaqeeyo noloshiisa iyo meeshu seexan lahayd bis kafaalaqaad ma barababa inuu siiyo wax mishaar dhan oo la dhahayo ninkii wuxuu dhahay waa bil ay isku dhiibtaa waxaan isleeyahay dabcan ninka waa nin iska yara mashquulsan xoolihii midda waxba ku cakiran kulay asaa ku siin doono iska sugun baan dhaha ayuu dhahay waxay saas ahaataba xilli isku dhiibto sanadba sanad isku dhiibo waxay gaartay muddo 5 sano ah run ahaantii lacagta markaas lagu heshiiyana ninkii markii shaqada uu keenay oo wiilkii shaqada keenay ama ninkii shaqada keenana dib uma uusan soo laaban oo yani wuxuu ku dhahay waxaan ku xareeyay iqaamadii ama dalka waxaad ku joogi lahayd yani ma uusan soo laabaninba wuxuu ku dhahay odaygii ayuu u wacay wuxuu ku dhahay adeer waxaan rabaa inaan waxaan go'aansaday inaan wadankayga iskaga laabto oo nolol kala sameysto maadaama meeshaan waqtiga iiga dhumay waxaan rabi lahaa yani inaad isiiso sharciga inaad isiiso yani lacagtii aan kula joogay inaan anbabaxaan rabaa hadii aad yani markaas nolol kale aan rabaa inaan sameysto sidaas ula soco markana wiilka markii hore wuxuu ku fikiray inuu yani odaygan maadaama aysan lacag ka soo cadeen mustaqbalkiisa uusan ku sii luminin meeshaan waayo nacfi kama soo galayo 5 sano ku dhawaad ayuu joogaa meeshaan wuxuu isdhahay bal nolol kala sameyso iska guurso taasoo aad ilaahay uu ku siiyo awlaad kale noloshaada wadankaaga ku laabo beerahaaga iska fala xoolahaagana iska raaco iskana guurso odaygii markii uu tagay arintii uu u sheegay odaygii wuxuu ku dhahay goorma bixaysaa taariikh hebel ama xilli hebel ayaan baxayaa in adeero waxayga ii diyaari ayuu ku dhahay odaygii awalba wuxuu ahaa nin baqiil ah oo waxba aan ka dhicin kaliya wuxuu wiilkaas siin jiray muddada 5 sano uu la joogay wixii uu cuni lahaa iyo yani waxyaabo oo markaas wax yar oo macna aan lahayn ayuu siin jiray odaygii muddadii 5 sano ahay la joogay dhiibi waayay mishaarkii markii lagu dhahay yani waxaan u baahanahay mishaarkayga waxaan rabaa inaan ka tago mishaarka markii la qiyaasana 5 sano waxay noqonaysaa lacag badan intaasoo adiga 2,000-3,000 dollar camal inay noqoto laga yaabo waayo dadkaas baadiyaha lacag fiican badan ama dhiyo adiga ala kulli xaal ninkii odaygii waagi ayaa ku cadaaday oo waagi ayaa ku bariyay wuxuu dhahay diyaar waayo wax isla weyneenno xilli hebel aad waxaysid isku kayankeen
yacni imow camal. odaygii ileen wuu iska baxay, wiilkii oo beertii weli shaqadii kasii wado oo taariikhdii uu bixi lahaa aanan la gaarin ayaa hal mar waxa u imaadeen askar geesaha kasoo wada galeen. wiilkii waa uu yaabay, waa lasoo waday, waxaa la keenay stationka. markii stationka la keenay wuxuuba arkay odaygii uu u shaqaynayay iyo naagtiisa. wuu yaabay, wuxuu ku dhahay adeer maxaa meeshaan ku keenay, aniga waaba la gartay nin waxaan ay wadanka ku ah marti, maxaa adiga yacni lagu keenay camal. wuxuu dhahay aniga hayla hadlin, hadalkaaga ma rabo, hayla hadlin. ileen wuxuu rabaa inuu dafiro mushaarkii ninkan. already wuxuu soo gudbiyay dacwo, ninkan asaaba soo dacweeyay. maxaa adeer maxaan kaa sameeyay waaye, aniga ma ahan islaantaydaad weydiinaysaa. islaantii wuxuu ku dhahay islaantaada ma aqaan, maxaan weydiiyaa. waxaad ii daba martay islaantayda, waxaadna fara xumaysay islaantayda, yacni dacwaan ka ahay, adiga ayaan kusoo dacweeyay, waana lagu xiraaya. qaaligii ama yacni ninkii madaxda meesha ka ahaa arrintii markii loo sheegay, naagtii waxay tiraahday haa ninkan wuu ii gogol dhaafay oo yacni qasab ayuu rabay inuu wuxuu dhan iigu samaysto. ninkan si qaldan ayuuna iila dhaqmay. ninkii asigoo cabaadaya oo qaylinaya oo leh aniga waxaan sameeyay ma lahan, naagtan weligay ma arkin, kaliya codkeeda bisaan maqli jiray, xataa lifekeeda weli maanan arkin, maxaad igu haysataan. yacni asigoo cabaadayo ayaa la qabtay, waxaana la geeyay stationka, waa la xiray. markii la xiray ninkii oo odaygiina gurigiisa ayuu iskaga laabtay asigoo weliba goos dambaha ka qoslaya. arrintan waa qorsho ay isla soo maleegeen asiga iyo naagtiisa si uu u dafiro xoolihii muddada badneed uu la joogay xaqiisa. yacni xoogaha waxay noqotay lacag roon, ninkii dhiibaya mushaar yar, lacag badan ma dhiibi karo soo maahan. calaa kulli xaal odaygii iyo naagtiisa way isa soo raaceen, waxayna imaadeen xaafadooda. xilli waxaa lagu dhahay xilli hebel isku keen ee soo laabo, ninkan waa la xukumaya. ninkii suudaanka ahaa xabsiga dhexdiisa ayuu iskaga ooyaa, waaga markuu baryo ilaa iyo habeenkii uu iska cabaadaa. waxaa meesha aga horeeyo nin kale oo sacuudiyaan ah oo yacni lagu soo xiray falal aad u weyn. run ahaantii dadka isku maskax ma ahan, ninka waa nin aad u maskax badan. wuxuu ku dhahay waryaa maxaad habeen iyo maalin korkeena u baroorataa oo u cabaadaa, maxaa lagugu soo xiray camal, arrintaada maxay waaye, bal wax iiga sheeg. arrintii ayuu u sheegay. wuxuu ku dhahay arrintan miyaad yacni arrintii markii uu u sheegay ninkii sacuudiyaanka ahaa waaba qosol ayuu la dhacayba. maxaad iigu qoslaysaa camal. yacni wuu qoslay, waxaa qoslaya ninkii sacuudiyaanka ah, waxaa lagu qoslayaa ninkii oo yacni suudaanka ahaa. wuxuu ku dhahay walaalkay maxaad iigu qoslaysaa, waxaad igu tirahday arrintii ii sheeg, haddana waad igu qoslaysaa, maxaa sababay. wuxuu dhahay ma arrintan yaroo iska basiidka ayaa lagugu soo xiray, haddaan tala ku siiyo oo taladaas aad qaadato isla caawa ayaad alhabeen yacni kuma seexanaysid xabsigan. wuxuu ku dhahay haye waayahay taladaada bal ii sheeg, waan rabaa inaan ka badbaadon horteeda u baxoon camal qabsado ayaan rabaaye, maxaan sameeyaa bal ila wadaag. wuxuu ku dhahay markii maalintii yacni waqtigaaga markii la gaaro oo lagu waco, waxaad ku tirahdaa qofka la iskama xukumayo, yacni waa qofka markii su-aalaha la weydiiyo waa la kala taadana dib aa la iskugu soo kadib ayuu xukunkiisa dhacaya. maalinta lagu xukmin doono yacni oo xukunkaaga uu dhici doono, waxaad ku tirahdaa oo lagu weydiiyo naagtan ma xoogtay, markii lagu dhaho waxaad ku dhahdaa haa arrintaas ani iyada ayaa isla ogeen, falkaas markastana ninkeeda uu baxo waan samayn jirnay oo ayada ayaabo ii imaan jirtay, xiriir hooseed ayaa inaga dhexeeya ku dheh. adiga markaas wixii kaaga soo baxa meesha bal ila soo wadaag. ninkii suudaanka ahaa wuxuu dhahay maya arrintaas ma samayn karo, waa arrin aad u qaab daran. haye waaya wuxuu dhahay hadaad samayn karin iskaga jir meeshaada. ninkan waa nin lagu soo qabtay waxyaabo aad u falxun, maxaa la dhahayay dilka oo kaleeto ayaa lagu soo qabtay. wuxuu dhahay haye waayahay aniga ila joog, wuxuu dhahay meeshaan habeen iyo maalin iskaga baroor. calaa kulli xaal ninkii arrintii asoo ka labalabeynayo ayuu loo wacay. waqtigii markii la gaaray wuuna qaatay falkii, yacni waa la wareystay. waxaa la waray Cabdalla, waxaa meeshana joogo ninkii awal keenay Sacuudi Carabiya, ileen waa aabihiisa wuxuu shaqaale aga dhigay wiilkan oo ay isbarteen. aabihii xaaskiisii wiilkii markii hore uu keenay yacni keenay Sacuudi
iyo adiga dad badan ayaa meesha isla joogeen familka oo reerkaas dhan way wada dhamaayeen ninkan ileen meesha dad uma joogaan wiilkii keena xataa meesha waa uu joogaa asaga oo yaaban ayuu wuxuu ku dhahay maxaa qaldan waxa aad lagugu sheegayo oo aabahay uu kugu sheegayo maxaa waaye wuxuu ku dhahay naagtii ayaa la wareystay markii wuxuu dhahay aniga يعني intaan naagta la wareysan wuxuu dhahay arintan waan sameyn jirnay aniga iyo adee aabaha xaaskiisa waana isla ogeyn markuu aabaha baxana way iimaan jirtay yani waxaan ahayn dad oo naga dhaxeeyo xiriir hoosaad naagtii ayaa dib loo wareystay ninkii odayga intuu xanaaqay ayuu wuxuu ileen awalba arinta waxay ahayd mala awaal waxay isla soo kii kaleesmeen oo yani isla jilaayeen odaygii waagi ayaa ku dilaacay maadaama uu dhahay naagtan xiriir hoosaad ayaa inaga dhaxeeyay markuu ninkeeda baxana way iimaan jiray markuu ninkeeda baxana wuu iimaan jiray markii hore odaygii wuxuu ku jeestay naagtiisa wuxuu ku dhawaay waxaan la sheegaya marunba inta ay qalqashay ayay tirahdeen maya waxaan waa beentiis oo iska mala awaalanaya ninkan weligay isma arkin ninkan weligay hataa maxaa la dhahayay maanan arkin hataa wajigiisa waxa igu horeysay maalin horeed oo meeshan u imaanaya ayaa igu horeysay maanan ma aqaani camal inuu adig ku shaqeynaa waa ogahay oo kaliya على كل حال odaygii waxaa maxkamadda ninkii fadhiyay oo wax kala xukminay wuxuu dhahay haye hebel marunba arinkaas haayuu dhahay aniga weligay naagtan ma arkin kaliya arintan waxaan u sameynaa inaan isku badbaadiyo runtanan waa naga soo saarayay naagtan weligay ma arkin maalintii adiga ay inta igu dacweynaysa ayaa wajigeeda igu horreey iyo maanta ka hor cuntada way ii keen jirtay laakiin wajigeeda ma arki jirin oo yacni meel ayay ii jirtay iyadoo sii socoto iyo ay hadalkeeda waan maqli jiray oo kaliya ninkaana been ayuu igu mala awaalanaya qaadigii meesha fadhiyay ama ninkii wax kala xukminaya maxkamadda fadhiyay wuxuu xukun ku riday odaygii wuxuuna ku dhahay waxaa laga rabaa ninkan masruufkii uu ku bixi lahaa mishaarkiisii oo shilin aan ka dhinneen yani wadankiisana lacagtii uu ku aadi lahaana waa laga rabaa ninkan haddii uu guursan lahaa xataa lacagtii uu ku guursan lahaa haddii guri uu dhisan lahaa lacagtii uu ku dhisan lahaa ayaa laga rabaa waayo been ayaad ku soo oogtay waqtigiisii waad ka dhumisay ninkan sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaad siduu rabo ugu samaysaa haddii kale xabsi ayaad galaysaa baqiilkii awalba inuu wax dhiiba aan ogoleen ayaa waajib looga dhigay nafla caariwa ama naf go-weysay camal ayaa ninkan ku jirto wuxuu dhahay aye waan dhiibayaa wixii oo dhan asigoo yaaban oo filin waa kuwa ayuu wada dhiibay ninkii wuu masruufiyey oo yani biilkiisii ayuu siiyey wuxuu u diray wadankiisii يعني انت ودنكيسي ودري ninkan wuxuu dhahay wax yar xabsiga ayaan rabaa inaan dib ugu laabto nin saaxiibkay ayaan ku jira rabaa inaan soo macsilaamay uu u tagay wiilkii meesha ku jiray wuxuu ku dhahay waad mahadsantahay walaalkay waxaana yeelay arintii aad i fartay 100% inkastoo ay xumeed oo yani ay ahayd waxaan wanaagsaneen haddana waan ku baxar badbaaday waadna ku mahadsantahay 100% adigana waxaan rajeynayaa inaad meesha ka soo bixi doonto على كل حال ninkii sidii ayuu wadankiisa ugu laabtay sidii ayaa loogu hagaajiyay waxa uu rabay sidii ayaa loogu guuriyay sidii ayaa gurigii uu sheegay loogu hagaajiyay adiga ninkii waxa laga dhigay nin markaas kaalis kaargo يعني wuxuu u imaado wadanka hadafkii uu kala haa shaqaala inuu shaqeysto lacag uu ka helayo eed wixii dhan qasab ayaa looga qaaday duqi waayo tacadi ayuu ku sameeyay nab ayuu ku sameeyay oo uu nabay wuxuu ahayn ayuu ku sheegay uu ceebeeyay يعني waxaad ninkan dhiibaysaa qaadigii uu ku xukumay wax uu ku iloowo dambiga aad ku soo oogtay wax uu ku iloowo in la eg ayaad siinaysaa guri ayaad u dhisaysaa waad u guurinaysaa gaariga wuxuu ku raaci lahaa ayaad dhiibaysaa mishaarkiisii oo 5 sano uu kula joogay oo shilin aan ka dhinnayna waad dhiibaysaa meesha wuxuu ku helay xukun aad u wanaagsan yani cadaalad ayuu meesha ku helay qisadeenina halkaas ayay inoogu eg tahay fadlan dhageysto qisadan maxaa kaaga baxay adiga commentiga waa ii muhiim dhiirigelintu waa dhankaaga la wadaag walaalaha kale waad ku mahadsantahay qiimeyntaada quruxda badan waxaan idin rajeynayaa tani kulanta dambe wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullah